وكما جنرال أحمد عبد علي خليري halkaan maanta waxa ugu hadlaynaa taariikh nololeedkiisa janaal Axmed Cabdi Cali Khaliire fadlan muuqaalka sii fogeeyo si shirgare naguna soo bir kana mid noqo asxaabteeda nagu xidhan waa kuma janaal Axmed Cabdi Cali Khaliire waxa uu ahaa halyey qaran oo ka mid ah saraakiishii ugu geesisaneyd ee Soomaaliyeed noloshiisa oo dhan waxa uu ku bixiyey difaaca dalkiisa isagoo ku soo baxay hogaamiye ciidan oo daacad ah dulqaad leh aqoon iyo khibrad isku darsaday barbaaritaankiisii iyo waxbarashadiisii wuxuu ku dhashay Garowe sanadkii 1964 waxbarashadiisa hoose dhexe iyo sare iyo quraankaba wuxuu ku dhameeyey isla magaalada Garowe wuxuu ku biiray dugsigii Xalane kana qaatay tababar hal sano oo ciidan ah kadibna wuxuu galay 2 sano oo akademiyadii ciidanka ah oo Leyli sarkaal loo tababaray kadibna wuxuu qaatay tababarkii commandos ee xarunta ciidamada cirka ee Baridogle shaqadiisa ciidanka xilligii dowladii dhexe ee Soomaaliya markuu soo dhameeyay waxbarashada waxa loo bedelay xaruntii 26aad ee gaaska labaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kadibna wuxuu ku biiray guutada 22aad 1984 waxaa loo magacaabay taliyaha ciidankii Soomaaliyeed ee fadhigoodu ahaa gobolka Awdal ugu dambeyntii waxa uu ka mid noqday saraakiishii SSDF wuxuuna ka mid ahaa dhalinyaradii ugu firfircooneed ee ka dhex muuqatay ciidanka dhexdiisa doorkiisii Puntland ee Janaal Khaliire waxa uu door muuqda ku lahaa asaaskii Puntland State of Somalia sanadkii 1998 wuxuuna qayb weyn ka ahaa saraakiishii sugayay amniga shirarkii taariikhiga ahaa ee Garowe kadibna Puntland dibadda loogu taagay Janaal Khaliire wuxuu Puntland ka soo qabtay xilal muhiim ah oo ka tirsan booliska iyo daraawiishta waxaa ka mid ahaa taliyaha جنرال خليري أنا أمر بان وحان ويدين ماشا هذا محدث وقفكم سيكي لنا واشكيك بدلين وحي أنا فرطو أمر واقع بس دوركي حرنت الأسعار bishii Febraayo 6 waxaan ka soo guuray gobolka Nugaal waxaan u soo gurmanay gobolka Sool oo muddo dheer cadawga isna uu saxaaraana oo sharci darro ah ku haystay dadka iyo dalkana tacaddi iyo dhibaato badan u geystay ilaa iyo bishii Febraayo iyo hadda dagaalo badan oo la isku dayay in laga faramaroojiyo qowlaysatada SNM gobolka Sool iyo degmooyinkiisa dhacay nasiib wanaag maanta oo ay bishu 22 bishii 8 oo maalin Jimcaha waxa Ilaahay nagu guuleeyay inaanu gacantooda ka saarno gobolka Sool iyo degmooyinkiisa oo ay qowlaysatada SNM muddo badan ku amar ku taagleynaysay taliyuhu wuxuu kaalin muhiim ah ka qaatay ka saaridii Somaliland magaalada Laascaano taasoo ay gabood fallo badan u geysteen dadka deegaanka habeennimadii 25 Agosto 2023 taliyuhu wuxuu ka mid ahaa saraakiishii go'aansaday inay subaxa Jimcaha Goojacada ka saaraan Somaliland Ilaahay wuu rumeeyay guul aad loogu riyaaqayna oo ay ka gaareen isaga iyo guutadiisii Duufaan halkaas baana ciidankiisu jiray ilaa dhamaadkii 2024 doorkii dagaalka argagixisada ee Hillaac qalab wuxuu xareeyahay waa aad ka baqad inuu isku kaaqaxiyo waalidii ninka gacmaha taaga oo isdiiba oo bini aadanka
وأن قرح كوحة رين هدر هذه شيرية ولا كمانية شرعي قال لك شيرية مكتوب لي هذا كان نور كنت عين إيش اللي قصة إيدي ونوش كبدل سلدو وكل دبر كأها هوجلك إلا وبطلان كل الدجال لما يصير كوحدة أيسس بورها علم سكيل وكلها وعمل الدجال هل كاس كدعي وحنا لو قاضي داوين دلك هندية إن كستو داوع سو جاري haddana wuxuu dib ugu soo laabtay goobta dagaalka isagoo hogaaminaya ciidamadiisa si toos ah markuu dhintay wuxuu ahaa taliyaha guutada 15aad duufaan sidoo kalena wuxuu kaalin shariif ah ka qaatay dhismaha iyo horumarinta ciidankiisa waxaa la sheegaa inuu ku takhasusay sida loo dhiso ciidan loogana dhigo rag diyaarsan oo tayo sare leh sidoo kale wuxuu ahaa taliyaha howlgelinta guud ee ciidanka Puntland iyo taliyaha guutada labaad ee howlgalka Hiilaa halkaas oo uu hogaaminayay dagaaladii ugu waaweynaa ee ka dhanka ah kooxda ISIS geeridiisa waxa uu geeriyooday 23 September 2025 ayuu ku shahiiday qarax miino oo lagu aasay deegaanka Dhasaan gobolka Bari isagoo waajibaadkiisa halgan iyo hogaamineed gudanaya geeridiisa waxay murugo weyn ku reebtay shacabka Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya madaxweynaha dowladda Puntland ayaa aas qaran ugu sameeyay garoonka magaalada Boosaaso waxaana loo sii galbiyay Garowe sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Puntland dhaqanka Puntland iyo isimada Khaatumo iyo kumanaan qaybaha bulshada ka mid ah oo ka kooban ayaa garoonka Garowe mar labaad salaada janaasada ku madaxweyne ku-xigeenka Puntland dhaqanka Puntland iyo isimada Khaatumo iyo kumanaan qaybaha bulshada ka kooban ayaa garoonka Garowe mar labaad salaada janaasada ku oogay madaxweynaha ku-xigeenka Puntland ayaa ku dhawaaqay in barxadda weyn ee Garowe ee magaalada Garowe loogu magac bixin doono Generaal Axmed Cabdi Cali Qalyare waxayna markhaati ka tahay maqaamka iyo maamuus uu bulshada reer Puntland ku ahaa sidoo kale waxaa loogu magac daray taliska guutada duufaan ee xarunteedu tahay bixin ayaa isagana magaciisa loogu magac daray gunaanad Generaal Axmed Cabdi Cali Qalyare wuxuu ahaa haryay qaran oo dhaxal taariikhi ah ka tagay nolol kasta oo uu ku jiray wuxuu ahaa nin u taagan difaaca dadkiisa iyo diintiisa geeridiisu waxay noqotay khasaaro weyn balse magaca iyo taariikhdiisu waxay ku sii noolaan doonaan qalbiyada shacabka Soomaaliyeed maxaa laga yiri geerida Generaal Axmed Cabdi Cali Qalyare Allahu naxariistee gudoomiye ku-xigeenka gobolka Nugaal Taar Faarax wuxuu ahaa nin daacad ah saafi ah ولدنمada yaqaan oo xalaal miirad ah wasiir Faarax Cismaan isna wuxuu yiri wuxuu safka hore ka geli jiray goob kasta oo dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisa lagu difaacayo sidoo kale garaad jaamac wuxuu yiri guurtida geesiga waa Qalyare raggu ama guurtilimu wada jiray ama geesilimu wada jiray nin labadaba isku darsada ninkaasanu aragnay Talyalayni wuxuu ahaa nin geesi ah dulqaad badan wadani ah oo leh aqoon ciidan oo ku filan sidoo kale Generaal Siciid Dheere wuxuu yiri wuxuu ahaa saraakiishii aan dalka kaga nastay oo ilaa dhammaadkii u taagnaa difaaca qaranka bulshada reer Puntland markhaati guud
أو جنرال أحمد عبد علي قليرة وحوها جيسي قرن طبيقان يهجامي عيدا أو أقون له خبرت يداعدني مو اسكو درسدي وحوها نبضون سدا دحديدا سمعد وين كلها waxaa laga dheehan karay dhaqankii aabihii oo ahaa nabadoon caan ka ahaa Puntland iyo galiga Soomaaliya